waxaan xusayaa halku-dhegga kulanka ama shirweynahaas waxa uu ahaa waayaha Somaliland iyo baahida loo qabo dib u hawlgelintiisa iyo dardargelintiisa taas ayaa diiradda la saarayay ereyga dardargelinta iyo dib u hawlgelinta waxa keenayna waxay ahayd waxay xubnaha naadigu ay dareemayeen meel ay joogaanba in sanadihii dambe uu jiray gaabis loona baahan yahay in mar kale la dhibibkiciyo oo lagu celiyo maqalkii magaca naadiga iyo waxqabadkiisii halkii heerkii ay joogi jireen oo ay Soomaaliya oo dhan iyo dunidaba ku baratay marka himiladaas waxa ay hadda u ekaatay markii shirkani uu noo soo gabagaboobay in ay dhawoobayso waxaa abuurantay yididiilo weyn in himiladaas ay dhawoobayso oo ay ka dhabayn doonaan mas'uuliyiinta cusub oo laga xilsaaray dhaqaajinta marxaladan cusub sababta ay u garteen xubnaha naadi ka qaybgalayaasha shirweynuhu in bal markan loo dhiibo hoggaanka oday roog caddaa ah oo muddadii uu soo jiray maaragtay shirweynuhu naadiguna ka ahaa intaa yacni garab oday ahaan muxuu ahaa wax weyn ka qabtay in loo dhiibo iyo in la xulo xubno kale oo la isleeyahay waa ku habeen yihiin aad looga fiirsaday in ay muxuu ahaa marxaladaas dhaqaajiyaan yacni aad loogu hanwen yahay markaa sidaa darteed aad iyo aad ayay u weyn tahay yacni u xooggan tahay himiladaas ah inay marxaladan cusubi guulaysan doonto oo uu naadigu mar kale cidka isku shareeri doono maqalkiisa iyo waxqabadkiisu